كاغا مكبل تغوغا تغلا فوري تشيش هذا ما لقيته شيخنا الفاضل أفرت قبل غير كجرا الله كشيء شيخي قال هو سائلك حقه هو ليه شيخنا الفاضل كبر أيان إسكور سني مدة أيان إسقبني أدي هذا أيان إسكور فرح سنين لكن إلا أي لا شو بحلا يوليه شيخنا الفاضل كبر خات يتجار كأيه انتهى أيوليه يعود بكلمات الله تمام شغل الفاضل وحوليه هي هري وإيجا قرصي مركي أن أجادنا وحن أشجع أي يري إن يتكدسوا لكن دك زلق وما يتصل ويدوم رئيسا وحين ولي بلد دورنا رئيسا أي يري حاجة أجنبية هذا أي مرور جلسي وأنا أنتم ويسي أي وليه شغل الفاضل ما حد يقول لك رئيسا حدي أن بغل جرنا بدبدا إن رجل لجوء يدي جري بالودا ما أنتي واتن فليتفضل مشكورا ومأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودي أنكو قياسي أفر بلود بسؤاشا إصامت ما أيدي وصول نقطين لفتين ما مسوامت كان سيكا سبها النقطين قبضني واقف بشر هرطة واقف بني آدم إنسان كنا واقفي كراه قبضنا كريما ليه إنك كريما ليه وحصور تقاله رجع سؤال بان ويدينيا meeqa ayaad qaad cuntaan oo dumarku idinku dulqaataan ar su'aasha ka jawaab rabo maanta meeqa sigaar cabtaan oo dumarku idinku haystaan ma ka jawaabi kartaa su'aasha hal gabadh hadda ma tabriirinayo gabadhu weyn cunto bari hal gabadh ama laba gabadh ama dab aan tira lahayn dumarka marka la qiyaaso inay gabadhi qaad cunto ama sigaar cabto waxa laga dhigayaa jariima laga dhigayaa kaagu jariima maaha kaagu dambi ma aha meeqa ayaa ragow aad ku dayacdeen dumarka qaad meeqaad ku dayacdeen sigaar meeqaad ku dayacdeen fadhi ku dirir haddii la helay gabadh sigaar ama qaad cunaysay maxaa intaas oo rag ah oo reerahooda baabiyey gabadhan ka takooray qodobka xujjarigii ka dhigaya raggan xujo oga dhigaya reerahooda ku burburinaya qaadka iyo sigaarka xaaskiisu markay bilowdana dhahaya balaayaa dhacday islaantaydii baa qaadka cuni hadda ka hor markii su-aasha la weydiiyana waa qisada waan soo qaatay waan xusuustaa way ila tarin anu dib baan u dhegaystaa waan ogahay su-aalaha inta badan maxaa la yidhaha isoo mar aad baan oga warqabaa waxaan tusaalaha maalintaana aan soo qaatay waxaa idhi nin baan sigaarka in badan ka waaniyey anigan idinla hadlaya waxaan ku idhi carruurtaadu way yaryar yihiine ka warran caawa hadday xaaskaagu sigaarka bilowdo ama wiilkaagu markuu weynaado uu sigaar cabo wuxuu yidhi suurtagal maaha oo maxaa dhacay maxay suurtagal u noqon weyde maxaa diidaya hadduu xaaraam yahayna iska daa hadduu xalaal yahayna maxaa ogu diidi maalinka dambea wiilkiisa oo 19 sano jiray ayaa sigaar buu ku arkay oo ul buu qaatay adeer iska dhig baan nidhi ish sigaarkan adi soo gacanta kuma haysatid haa hadduu xaaraam yahayna adiguna iska daa wiilkana daadheh hadduu wakti dhumis yahay hadduu lacag dhumis yahay hadduu uf yahay hadduu qurun yahay hadduu wasakh yahay hadduu qurmuun yahay hadday malaa'igtu maxaa la yidhahdaa ay ka cararto hadday dadka masaajidada ahlu musalliya ay ka cararaanna adigu iska daa waxaan intaasoo muqadimo oga hormarinaya inaan horta sheego qaadka iyo sigaarku xaaraamnimo inay xaaraana yihiin ay reero badanna burburiyeen gabadha waxaan leehay gabadhay sidayna raggu ugu bannaanayn bayn adna kugu bannaanayn inaad sigaar cabto iyo inaad qaad cunto sidayna ragga ugu bannaanayn ayayna adiguna kugu bannaanayn ma dhahayo adiga kuma bannaano raggana way u bannaan tahay ma dhahayo yacni raggu way u bannaan tahay inay gabdho ajaaniba la qayilaan adiguna aad rag iyo ajaaniba aadan la qayilin aniga macnaha kuma dhahayo macnaha waxaan leeyahay waxa u diiday ninka qaadka sigaarka iyo inuu gabdho ajaaniba uu wax la cuno ama qaad la cuno ayay adiguna ku bannaanayn sigaar iyo qaad iyo inaad rag ajaaniba wax la cunto ilaahay oga baq reerkaaga ha ku duminin carruurtaada ha ku dayicin akhlaaqdaada ku ilaali diintaada ilaasho xishoodkaaga ilaasho ilmahaaga ilaasho dal qurba abaad joogtaa mukhadiraadka naftaaday dhibaysaa naftaaduu dhibaya oo sigaarku feedhahaaga ayuu
maxaa la yidhaahdaa ayuu madoobaynaya oo qaadku xoolihii buu kaa dhamaynaya dhaqan xumo iyo akhlaaq xumo ayuu ku baraya ilaahay ka baq ninkaagana suu sheegay waa ku jecel yahay dib oogu soo laabo adigana waxaan ku leeyahay gabadha ku kaalme oo ugu sabar oo ugu dulqaado oo waani oo wacdi biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaa laga yaabaa su-aashan qof aan aniga ahayn haddii la weydiin lahaa oo wadaad ah inuu dhilaa ma islaantibaaba qaad iyo sigaar baratay 3 dalqada inaa sii waana arkay rag saas oo kale ah laakiin waxaa ka qiimo badan oo ani ilaga wanaagsan inaan reeraha ciyaartaana lagu duminin dadka muslimiinta ana loo nasteexeeyo oo ay naseexadu noqoto midda asalka ah oo maxaa la yidhaha addiinu nasiixa ayuu nabigu yidhi sala allahu calayh waali wasalam marka qaacidada aan bixinayo waxaa weeye sida ayna ragga ugu bannaanayn ayayna dumarka ugu bannaanayn ayagana u bannaanayn waa qaacido qaacida labaad waxaan leeyahay war sida aad ugu sabri lahayd ay kuugu sabri lahayd gabadhu haddaad adigu qaadka cuni lahayd adiguna ugu sabar ooguna dulqaado dacwadana u gaarsii wax ka muhiimsan baa idin sugaya awlaadiinni baa dal gaala joogta ciyaar reerku intuu idinkaga dumo carruurtiinnu yayna idinka dayacmin inta ayaan kula talin lahaa reerka wallahu aclam ما شاء الله جزاك الله خير.